badan magac kasto ay leeyihiin iyo mansab kasto ay ku yimaadeenba mid looma koobi karo waayo waxa ka soo qayb galay dad aad u kala duwan oo fara badan oo martabadooyinkooda iyo mansabkooda uu kala duwan yahay marka waxa ku filan inaan dhammaan ku soo dhaweynayno qof kaste martabadiisa inta kadib aynu ilaahay ka cabsoono waxaa la yidhaahdaa kullu maqaamin lahu maqaal boos kasta wuxuu leeyahay hadal lagaga hadlo meesha waxa aynu u nimid waa damaashaad iyo dabaaldeg iyo xusuus iyo taariikh waxaynu u nimid inaan wadaagno ka sheekayno wax isweydiino sidaa darteed waan soo koobahayaa waxaa laga maarmaana ummad muslimiina haddii ay meel isugu yimaadaan inay fardu kifaayaha iska ridaan fardu kifaayuhuna wuxuu ku dhacayaa ilaahay aynu ka cabsoono qofka muuminka haddii la xusuusiyo cabsida ilaahay iyada ayaa ku filan waxaana la rabaa inuu miisaanka isagu isa saaro oo uu isqiimeeyo oo axadka la xusuusiyey mahaabadiisa iyo kahibaysigiisa uu xusuusto ilaahay aynu ka cabsoono lamid ma aha waxyaabaha kale la isku cabsigeliya lamid ma aha waayo qof axadka aynu ka cabsoono la leeyahay waa allah oo sidan quruxda badan inoo ahaysiiyey oo adoo cadam ah ku iijaadiyey oo fii axsani taqwiimin kuga abuuray oo fii axsani suura kuga abuuray sidaa daraaddeed naftaydiiyatiinaba waxaan u dardaarmayaa bitaqwa allaahi wa lusuumi daacati ilaahay cabsidiisa iyo adeecidda rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam xafladdan waxaa la rabaa runtii waa xaflad si gaara loo soo agaasimay xusuus gaarana mudan waa xafladdii 38aad ee aasaaskii jabhadda waddaniga xoraynta ogaadeynaya waxaa la rabaa marka inayna xafladaha caadiga oo kale ayna ku tirinin waxaa la rabaa in la ilaaliyo dhammaan waxyaabaha wanaagga iyo bilicda iyo quruxda keeni kara waxyaabaha shareecada ku fiican waxyaabaha dhammaan ikhtilaafka isdhexoradka iyo fasaadka iyo foolxumida keeni karana la iska ilaaliyo waxaa isugu yimid xafladdan rag iyo dumar waxaa isugu yimid dad yaryar oo dacyara iyo dad waaweyn dhammaan waxaa la rabaa qof walba inuu ka qaato qaybtiisa isagoo ilaahay kaga cabsoonaya ajri inuu shaqaystana meeshan u yimid iyo ixtisaab lilaahi fadhiga aad fadhido iyo socodka aad soo socotay haddii ujeeddadaadu ay tahay sidii aynu u agaasinay ama ay xafladdanu ay ka turjumayso oo ah in halgan gobonnimo doon oo ilaahay dartii wakhti dheer u soo socday oo qarniyaa lagu xoojinayo ama lagu muujinayo waxaa lagu qorayaa inta aad fadhido iyo inta aad dhaqdhaqaaqayso iyo inta aad adeegaysaba ajri baa lagu qorayaa marka waxaa la rabaa inaadan ajriga iska nusqaaminin oo si qurux badan oo sharaf leh oo karaamo leh
oo qiyamkii ilaalintiisa leh inaad meesha u joogto ugana soo qayb gasho niyadaadana aad wanaagsataa la rabaa. waxaan naftayda iyo tiinaba u dardaarmayaa cabsida ilaahay baan u dardaarmayaa. maanta waa maalin farxad iyo murug labadaba xambaarsan. farxad way xambaarsan tahay oo taariikhda dheer ee halgankeenu uu soo socday kii ugu dambeeyey jooxa hogaaminaysay 38 sano jirsaday markii la fiiriyo iyo dabkaan wakhtiga dheer shidnaa waa farxaddeeday leedahay. waxaan rajaynaynaa tubta aan hayna inaan ku gaadhno guushii rasmiga ahayd. dhinaca kale markii laga fiiriyo murugadeeday leedahay. waxaad ogtihiin halgamayaal badan iyo halyeeyo badan inaynu ku soo weynay halgankan taariikhiga ah ee muddada 5 qarni iyo ka badana socday. waxaad ogtihiin agoon badan inay maanta meesha fadhido ama ay joogto daafaha caalamka ay kala joogto oo halyeeyadii dhalay ay ku shahiideen halgankan iyo gobonnimo doonka ummaddan iyo xoraynta geyiga. marka waxaa la rabaa inaynu xusuusta ayna halmaamin, aynu farxad iyo murug labadaba ku joogno inagoo taariikhda milicsanayna rajaynaynana inaynu gaadhno tubta aynu hayno guushii kama dambaysahayd insha allahu tacaala. allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar. ogaadeenii ha xorowdo, ogaadeenii ha israacdo. aad baan u salaamayaa xubnaha sharafta badan ee quruxda badan ee ka soo qayb galay munaasabadan. mas-uuliyiinta dowladaha geeska afrika ee faraha badan ee meeshan iskuulida aad baan u salaamayaa. oo ugu horeeya xildhibaanka aynu degmada uu isagoo xildhibaanka ka yahay innaguna aynu ka howlgallo bulshada noogu badan ay ku dhaqan tahay xildhibaan yuusuf xasan, xildhibaan maxamed cadow oo nin badan isagoon xildhibaan ahayn taageeri jiray shaqooyinka uu qabto iyo qaabka u shaqeeya aana jeclaa inaan ku dayday in badan. aad baan u salaamayaa gudoomiyaha ruuxiga ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadaya ahna gudoomiyihii hore admiral maxamed cumar cismaan. aad baan u salaamaya mas-uuliyiinta kale ina magac dhawin aad baan u farbadantihiin dhammaantiin. salaamullahi calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. intaa kadib waxaa la ii igmaday inaan soo taariikhdii ururkan hadda meeshan dabaaldegiisa aynuu joogno oo kooban inaan akhriyaa la ii igmaday. sidaas daraaddeed taariikhda ururkan way dheer tahay, marka iyadoo lasoo koobay baa la ii dhiibay. bismi illaahi araxmaan iraxiim. maamulka iyo xubnaha jaaliyadda taageerayaasha jabhadda marti sharafta kala duwan ee ka soo qayb gashay shirka sida bilicdasan loo soo agaasimay waxaan idin leeyahay dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuhu. mar kale salaamtaasi kadib mar kale waxaad iga guddoontaan salaam diiran oon idinka sido guddoonka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadenya, guddiga fulinta iyo golaha dhexe ee jawxo. walaalayaal, maanta waxaan isugu nimid inaan xusno aasaaskii jabhadda wadaniga xoreynta ogaadenya ee jawxo. fikirka aasaaska ururka ONLF waxa uu ka bilowday natiijadii ka dhalatay dagaalkii 1977 ee dhex maray dowladihii Soomaaliya iyo Itoobiya. in jabhadan lagu dhawaaqo waxaa loo maray marxalado isdaba jooga oo kala duwan. waxaa ururka ONLF si toosa loogu dhawaaqay 15 August 1984. ujeedada loo aasaasay ururka ONLF waxa ay ahayd in qadiyadda ay ka tashiga shacabka Soomaalida ogaadanya ay gacantooda ku qabsadaan ayadoo xoreynta shacabka loo marayo waddo kasta oo suurtagal ah, waa qori iyo qalinbe. aas-aaska kadib waxa uu ururku muddo 7 sano ah ku shaqaynayay hab qarsoodi ah. ururku waxa uu waddanka soo galay sanad kadib markii la aasaasay oo si qarsoodi ah uu waday xubno kasbasho iyo ugogol xaarid in hogaaminta gudaha dalka ay ka howlgasho. kadib isbeddelkii ka dhacay Soomaaliya iyo Itoobiya 1990 ilaa 1991 ururku waxa uu si rasmi ah oo cad u bilaabay inuu dalka uga howlgalo. ururku waxa uu si rasmi ah u bilaabay inuu dalka gudihiisa ka howlgalo. halganka qoriga caaradiisa ah wuxuu soo maray marxalado kala duwan intii ka horeysay heshiiskaas waxaana ka mid ahaa wada hadallo sanado badan socday oo la isku mari waayey. dadana gaar ale ayaa sawir beena ka bixiyey qaabka uu ku bilowday halganka hubaysan, iyaga oo sheegay inay jabhaddu qaadatay go'aanka dagaalka. arrintaasina waa been. go'aanka ah in hab nabad ah lagu halgamo waa go'aan istaraatiiji ah oo ay jabhaddu qaadatay kadib markii isbeddel muuqda uu ka dhashay nidaamka xukunka Itoobiya. nidaamkaasina ogolaaday inay jabhaddu si nabadgelyo ah dalka gudihiisa uga howlgeli karto, dhaqdhaqaaqeeda wadanina ka sii wadan karto. muddadii 4 sano ahayd ee ururku ku socday nidaamka nabadgelyada ah waxay jabhaddu qabatay shirar ay ka mid yihiin kal fadhiyo
iyo shirweynihii afaraad kaasoo lagu balaariyey golaha dhexe waa shirweynihii afaraad ee ka dhacay magaalada Goday. ururku wuxuu dhankiisa ka taabageliyey in si guud ay deegaanka uga hirgasho nabadgelyo buuxda iyadoo ayna dhinacyadii kale ka soo wada bixin qodobadii lagu heshiiyey ee heshiiska dhex maray jabhadda iyo dowladda Itoobiya. walaalayaal waad ka warqabtaan inuu dalku xaalad adag ku jiro qalalaasa dagaal oo waqooyiga iyo meelo kala duwan haddana ururka al-shabaab uu weerar gudaha ku soo qaaday deegaankeenna. dhacdadaasi kadib waxaa xukuumadda deegaanka ciidanka shacabka iyo xisbiyada oo isku duuban si geesinimo leh uga hortageen weerarkaasi waxaana laga gaaray guulo taariikhi ah oo lagu naalowdo. mowqifka ONLF marxaladan waxaa weeye sidan: jawxo waxay wadi doontaa halgankii lagu raadinayay aayaka tashiga shacabka. jawxo waxay qabtaa in la sii xoojiyo hanaanka federaalka qowmiyadaha ku salaysan oo si dhaban loo hirgeliyo ismaamul qowmi ah. intaas waxaa weeye war-saxaafadeedkii waxaa weeye taariikhda ururka la ii dhiibay. haddaan dhudhummada lugaha gacmuhu dhab u caawinayn dhaayuhu aragtida ku darin lixaad ma dhammaystirmeen dhaqaaqiyo wada jirkaan dhigeen kaga wada tagno dharaartay tahay August 15 baan dhabaha guushii hantinay. ogaadayaa xorowdo Soomaalidu ha midowdo guumaysigu ha dhaco midab kastoo leeyahay ha dhaco mabda' kastoo leeyahay ha dhaco magac kastoo leeyahay ha dhaco idinkuna guulaysta. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. marti sharafta gudoomiyihii hore jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya admiraal maxamed cumar cismaan, xildhibaan yuusuf xasan, xildhibaanka kamakuuji, xildhibaan maxamed cadow, xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya ka socda, xildhibaan cumar yuusuf qaladiid, xildhibaan shuuriye, xildhibaanada gabdhaha, bahda saxaafadda, gabdhaha iyo wiilasha iyo hooyooyinka halganka, naftoodurayaasha jabhadda wadadana xeereynta ogaadeenaya ee qadiyadan u soo tabaaloobay iyo dhammaan dadka meesha isugu yimid. ruux walba maqaamkuu joogo, MCA-yada kama reebin, maqaamku ruux wale ku fadhiyaan ku salaamay. waxaa laga yaaba magacyada haddii la gala in wax la kala reebreebo, raalli ha ahaadeen ciddii aan magaceeda aana si khaasa u xusin. soomaalida waxay dhihi jireen qolyihii hore saalixiyad nin baa loo salaamaa. waxaan malaya inay idinku filan tahay haddaan intaasoo dhan aan idin tiriyo, intiina kalena waa daba socotaan. aad baad u mahadsan tihiin. munaasabadan aan maanta isugu nimid ee sida qiimaha badan loo soo agaasimay xafladda sanad guurada 38aad 15 August. kollayba wakhtigu waa iska cidhiidhi. wax badan oo halganka ama sooyaalkiisii ama maraxishu soo maray ama dadkii ku soo rafaaday wax badan oo la xusi lahaa baa jira, laakiin way xusan yihiin, sidaasay ku yihiin. waxaan jeclaan lahaa inaan faataxada u maro halgamayaashii qadiyaddan u soo shiiday mar hore iyo mar dambeba 100 sano jirsatay iyo in ka badanba. aan faataxada u maro waa shuhadee, shahiidnimadooda allahu aqbalo. inta haddaan ka gudbo, runtii waa xaq weeye. adduunku waxa uu isku raacsan yahay ee qaanuun walba ama diin walba oo ama samaawiyeed ama qaanuun kasta ogol yahay, ruuxa bani aadamkii isagoo xor u dhashaa, isagoo xor ahna inuu noolaado xaq buu leeyahay. cid ku diidani ma jirto, hadday qaanuunada tahay iyo hadday tahay diimaha samaawiga. wax wali waxay ogol yihiin in ruuxuu ku noolaado xornimo, inuu ku noolaado. marka ummaddan xornimay u soo halgamaysay, wax badan bay soo martay, wayna sii soconaysaa ilaa ay ka gaadho aayaka talinteeda iyo waxa iyadu doonaysa masiirkeeda. halgankan wuxuu ku bilowday fikir qori kumuusan bilaabanin, rabitaan shacbi oo qalbiga shacbiga ka yimid yuu ku bilowday.
maantana uu ku dambeeyey waxaa la garwaaqsaday oo Ethiopia iyo dadkii gumaysidii qoomiyadihii waxay isla wada garwaaqsadeen inaan cadaadis waxba lagu wadi karin cidnana ayna cid ku haysan karin halgankiina kolku sidaa noqday isbeddelkii adkaa ee yimid yaa lagu go'aansaday xisbiguna uu ku yimid marka waa sidaasay hadda ku socotaa lagama gabanhayo hadday duq tahay iyo hadday dhaqan tahay iyo hadday halgan tahay iyo hadday hooyooyin tahay dadkan qadiyadiisii inuu helo ee ay ka talintiisa cod dheer baan ku sheegaynaa oon leenahay wuxuu rabo dadkani ha helo oo ummaddani ha hesho halgankan wax badan buu soo maray waa markaa munaasabaddu waa la ysaga dambayn dad badan baa sugahaya waxaan leeyahay hambalyo 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 ilaahay mahad u sugnaatay waxaa kaloo aad ugu mahad celinayaa dadka dowladdan Kenya dadka xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta ka ah ee qadaayaadka Soomaalida mar walba garab taagan hadday tahay tan jamhuuriyadda Soomaalida iyo tan hadday tahay qadiyadda ogaadeen iyo halgankooda daba taagan ee mar walba u sahla kunana halgama waxay doonayeen shirarka iyo munaasabadahan kala soo qayb gala aad bay u mahadsan yihiin waxaan jeclahay inaan intaa ku soo gabagabeeyo mar hore iyo mar dambeba dadkii qadiyaddan u shahiiday idinkuna sii wada waxaan isweydiiyey kolkii aan meesha fadhinay wejiyada dad kolkaan arkay dhallinyaray u badan yihiin waxaan idhi warawayay heesiga halganka gumacololay la gocolaynayaan geedka gashaba way goynayaan goobtii kasta way kaa gacan sarreeyaan marka xoogaa laabtay u qabi iyo dhuux iyo dhiiggaan kuu sidahay iyo waa waktigeeda waa tibtoog iyo munaasabadda dhallinyaray waxaan leenahay ha ka daalina halganka abayowgii iyo hooyooyinkii gablanka ahaa garab istaaga asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan salaamahayaa madaxda ka soo qayb gashay xafladdan aadka u weyn munaasabadii maxaan ku dhahaa sanad guuradii jabhadda xoreynta ogaadeeya waxaan leenahay jabhadda iyo ka soo qaybgalayaasha dhammaantiin gabdhaha dhallinyarada bahda saxaafadda maxaan ku dhahaa bahda fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed waxaan si khaas ah u xusahayaa madaxda meesha fadhida guddoomiyihii hore ee jabhadda xildhibaanka Kamakuji Yuusuf Xasan maxaan ku dhahaa hogaasyada xildhibaanada Soomaaliya Cumar Qaladiid Cabdiraxmaan Maxamed Nadiif maxaan ku dhahay Maxamed Cadow dhammaantiin waan idin salaamahayaa gabdhaha Soomaaliyeed ee jabhadda guulaystaan idin leeyahay dhammaantiin wax fara badan meesha uma soo istaagin waqtiga waa la isku yareeyey waxaan rabaa wax yar dee waan la soconnaa jabhadda iyo ma garanaysaa awowyaashan iyo aabbayaashano wixii ay ku wada dhinteen ma garanaysaa ku wada maqnaayeen weeye in la isxusuusiyo sanad walba oo ma garanaysaa la dhaho kor u qaadistiisa iyo horu socodkiisa intaba la isweydiiyo wixii lagu dari karo lagu daro wixii garab istaagana loo muujiyo jabhadda waa wax muhiima dhammaantiin waxaad faran tihiin ka qayb qaadashadii iyo ma garanaysaa ka mid noqoshaha jabhadda intaba waxaan leeyahay jabhadda ha guulaysato hadda jabhad way ka baxday xisbi bay noqotay haddii aad qoriga nagu mateli jirteen hadda qalinka nagu matela oo wixii aad qoriga meel baad ku tiiriseen qalinku waa inuu hadda shaqeeyo dhibaato fara badan baa ka jirta dhulkeennii waxaa ka jira crisis baa ka jira dagaalaa ka jira abaaraa ka jira marka koowaad waxaan rabaa inaan xusno abaarta iyo dhibaatada ka jirta in ilaahay loo baryo dadkaas inuu ilaahay ma garanaysaa uu roobkiisa iyo naxariistiisa siiyo intaa kadib abaarta markaan ka gudbo dhibaatooyin crisisaa jira crisiska ka jira ee xuduudaha waxaan leenahay dowladda deegaanku ha soo koobto oo ha ka hawlgasho xuduudaha iyo deegaanka iyadoo ay xukunto ha ka hawlgasho oo amnigiisa gacanta ku dhigto hadday al-shabaab tahay hadday qabaa'ila tahay hadday qoomiyado soo duula yihiin dhammaan waxaan kaloo rabaa inaan xuso oon dowladda iyo madaxweynaha aan rabaa inaan ku xuso oo aan madaxa uga tuuro wuxuu mas-uul ka yahay madaxweynaheenna maanta degmooyin fara badan oo deegaankii Soomaalida ahaa
inay matalaad la-aan yihiin kuwa hor lana uu leeyahay waan samaynhayaa caqliga noocaas anigu ma garanin nooca uu samaysan yahay marka waxaan ku soo koobayaa dhammaantiin guulaysta asalaamu calaykum waraxmatullah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن يالي مرويين aad baan idin salaamayaa waa maalin qaali nagu ah inkastoo dib nooga dhacday oo hadda aan joogno September waan garan karnaa sababaha ay dibta ugu dhacday waddankeena Kenya waxaa ka jirtay doorashadaas darteed ayaa August 15 ay dib ugu dhacday maanta oon xusayna 15 August farxad keli ma xambaarsan ee murugana way xambaarsan tahay maxaa yeelay wiilal iyo gabdho fara badan dad qaali nagu ah ayaa darteen u shahiiday oo naftooda u huray waa maalin uu qori bilowday nagula qasbay inaan galno dagaal dhiig ugu daato maantase waxaan u joognaa tii qalinka oo ka fududay intii qoriga marka maxaan leeyahay maalmaha wada badan wada bilan oo haddana kala mudan jowxo inta waxay u fadhidaa ma aha fantastiya keli ma aha farxad keli ma aha waa inaan xusno dadka naga shahiiday rag iyo dumarba duruufihii adkaaya lasoo maray agoontii dhaawaca naftaduuriyaashii kulli xaadka beelay intaa markaan ka gudbo markaan Agosto xusayno bilaha miilaadiga bil ka mid weeye kaliya waxay xambaarsan tahay culays gooni ah qaraar muhiim oo ummadda reer Ogaadeenaya ay gaartay go'aan muhiim oo ay gaartay darteed ayaan u xusaynaa marka sharciga samaawi ee markuu soo dego ma soo dego dad aan dhul aan lahayn marka dhulka iyo dadka iyo diinta saddexdaa shayba way isla socdaan lama xukumi karo diin ama sharci wadci ha ahaada ama ku samaawi ha ahaadee laguma xukumi karo dad aan wadan lahayn halkan waxaana keenay waxaa weeye waxaad maqlayseen dadkii mudanayaashii iga horreeyeen inay dhaheen yucub baan ka imaanay iyo maraacaadaan ka imaanay meelo filan asalkooda guddigeenna saas baan wadanahay waxaana keenayna waxaa weeye duruufo kala duwan marka waxaan leenahay mowqifka maanta aan taaganahay waa mowqif diini ah ma aha mowqif oo macnaha aan fantastiya samaynayna keli ma aha nabiga calayhi salaatu wasalaam markii maka uu ka baxayey isaga oo aad u murugaysan oon jeclayn inuu ka baxo magaaladuu ku dhashay oo ku soo barbaaray ayuu ka baxay waana tuu leeyahay maka magaalo barakaysan baa tahay magaalo wanaagsan baa tahay maanan kaan baxayn hadduusa tolkayga saaren tolkiisaa saaray waxaad garanaysaan inuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam madiina markuu tegey ilaahay ou sida maka aad noo jeclaysay madiina noo jeclaysay oo noo barakee marka waxaad garan kartaan xubul waddan inuu min aliimaan ay ka mid tahay عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا نقول سلام يا سلام إسلام كقالقة آد بان وفرح سنة هاي runtii xafladan iyo maaragtay madashan quruxda badan waxaan u mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala ayaa mahad leh inta ka dambaysana waxa weeyaan jaaliyada iyo dadka maaragtay soo qabanqaabiyay aad ayaan ugu mahadcelinaynaa waxaan salaamaynaa dhammaan maaragtay jaaliyada dhammaan madaxda ururka maaragtay madasha inta joogtay iyo inta ka maqanba waxaa fadhiya admiraalkii محمد عمر عثمان قدومي روحي قاها يمروديسي وحافظ يا مدحدي وروركا وحنا آديات أنا سلامة يا دمان حبناها يا تاجرياشا وروركا جوحو مداحة يقدوميها وروركا مادي كنت دفننتا يقولها الدحة وتدورياشا يعيدنكا حبناها تاجرياشا شعبكا ويوينكا دمانات بنو سلامة يا وحن سلام قاليا سلامة يا اللي معنا ذا Soomaaliyeed iyo kuwa Kenya inala jooga ee maanta ka soo qayb galay xafladan aynu qabsanayno oo macna weyn ku fadhida runtii dhammaan waan wada salaamayaa baada saxaafadda iyo dhammaan fanaaniinta inoo joogta ee maaragtay meesha inoo noolaysay dhammaan waan salaamayaa inta haddaan ka tago waxa weeyaan runtii maalintani waa maalin qiimo leh waa maalin runtii aad iyo aad qiimo u leh waa maalin aynu ku soo hiranno waa maalin aynu mustaqbalka ummadeenna ah waa maalin aynu sugayno inaynu ku xorowno waxaynu nahay ummad islaam ah dhibaataynu ku soo jirray in badan
dhibaatadayna haysataa waa gumaysi xornimaynu ku dhalannay xor baynu ahayn maanta gumaysi baynu ku jiraa laakiin waxaad garan kartaan inay maaragtay xornimadeennii soo dhowdahay yaad garan kartaan macnaha ay ku fadhida maanta xildhibaanada halkaa fadhiya iyo ururka iyo dhammaan shacabka markaad isu geyso eed qiimayso macnaha ay ku fadhido yaad garanaysaa iyo dareenka ay ku gelinayso xornimadeennii way soo dhowdahay aad iyo aad bay u soo uraysaa way soo iftiimaysaa insha allah bismillaahi kariim waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in ilaahay xornimadeennu inoo soo dedejiyo ogaadeeni ha xorowdo ogaadeeni ha xorowdo ogaadeeni ha xorowdo soomaaliya ha israacdo ilaahay waxaan ka baryaanaa in ilaahay uu xaqeennii iyo xornimadeennii ina siiyaynu ummadda adduunka ku nool aynu la mid noqonno waxaan u tacsiyadaynayaa dadkeennii dhintay ee ay anfartulaysay ee gobolka city lagu laayay aad iyo aad baan uga tiiraanyaysannahay aadna waan u tacsiyadaynaynaa waxaan u ducaynaynaa shahaadadeenna dhulka hoostiisa ku jirta waxaan u ducaynaynaa agoonteenna iyo burburkeenna iyo naafadeenna in ilaahay u gargaaro runtii waxaa weeyaan shucuur aad iyo aad u sarraysa ayaa muuqata rajo weyn baa muuqata halgankeennii meeshuu rabay weli muuna gaadhin waxaa weeyaan halgankeennu xornimadu waxay ku baxdaa halgamaaga dhiiggiisay ku baxdaa dhiiggeenni baynu u hurnay xeelad iyo xoog waxaynu lahayn waynu gelinay welina goolkeenni maynaan gaadhin waxaynu rajaynaynaa qof kasta inuu mas-uuliyaddiisa qaybtiisa ka qaato oo dhammaanteen aynu u istaagno inaynu gaadhno goolkii aynu lahayn marka waxaa weeyaan hadalka ma sii badin karo oo waxaa weeyaan wakhtiga ayaa aad u yar dadkuna wuu badan yahay oo runtii dadka sugaya ayaa badan waan jeclaan lahayn inaan wakhti fiican haysanno oo inu maaragtay si fiican u wada joogno marka waxaan leenahay allaha raxmaanka ah waxaan ka baryaynaa ood hal mar aamiin allah raxmaanka waxaan ka baryaynaa inuu xornimadeenna taamayna siiyo aamiin allah raxmaanka waxaan ka baryaynaa inuu gumaysigeena oo kor qaado aamiin allah raxmaanka waxaan ka baryaynaa inuu ummadda adduunka uu inala simo oo inaga sarraysiiyo oo khayraadkeennii iyo dhulkeennii iyo dalkeennii iyo dadkeennuba ay xor noqdaan insha allah bismillaahi kariim meel qurux badan oo dalkeenniya oo xor ah oo calankeennu ka taagan yahay baynu inagoo dhan ku kulmi doonaa aad iyo aad baan idiin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan maanta waa maalin fiican oo wanaagsan aad iyo aad baan u salaamayaa dadka shacbigayagii qiimaha badnaa ee soo halgamay ee halgankii gobonnimo doonka ahaa muddada dheer ku jiray aad iyo aad baan idiin salaamayaa idinkoo wakiilka shacbiga soomaalida ogaadeynaya meeluu joogaba idinkoo wakiilka aad iyo aad baan idiin salaamayaa aad baan ugu faraxsanahay maanta munaasabadantada la wada ciyaarahayo oo dhallinyaradii rag iyo haweenba ay wada ciyaarahayaan erayada fiicanna halkan laga soo jeedinaya taariikhdii halgankan la wada tilmaamahayo aad iyo aad baan idiin salaamaya waad mahadsantihiin aad baad u mahadsantihiin halgankii muuna dhammaanin weli wuu socdaa halgankii wuu socdaa waxaananu doonaynaa ama aan rajo ka dhabnaa ilaahay inuu gumaysiga etoobiya naga saaro gumaysiga etoobiya ilaahay inuu naga dulqaado yaanu rajaynaynaa taana waxay ku xidhan tahay shacbigeenna iyo doonistiisa shacbigeenna iyo doonistiisay ku xidhan tahay shacbigeennu hadduu sidan ku socdo oo uu diidanaado gumaysiga waynu ka adkaanaynaa laakiin haddaynu madaxa hoos u dhigno oo aynu gumaysiga u khuduucno wuu inaga adkaan waxa weeye niyada shacbigeennu aad iyo aad bay u fiican tahay dadkeennuna aad iyo aad buu u doonahayaa xornimo oo uu jecel yahay maxaa yeelay inuu ummadda lamidkaa inuu la tartamo uu la socdo yuu diyaaru yahay calaa kulli waxaa weeye ogaadeeniya ha xorowdo innaga doonisteennay ku xidhan tahay waa in ogaadeeniya ay gumaysiga ka baxdo waa inay xor noqoto waa inay dalkeeda iyo dadkeeda iyadu u taliso aad iyo aad baan idiin salaamayaa munaasabadahan oo kale meelo badan baa laga wada qabanayaa marka shacbigeenna idinkoo wakiilkaa aad iyo aad baan idiin salaamayaa aad iyo aad waad u mahadsantihiin
ogaadeen iyo xorowdo ogaadeen iyo gumaysi ha ka baxdo وايه